iyadoo dhawaan la filayo isku shaandhayn iyo xilka qaadis uu sameeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariiso ayaa xalay wareegto ka soo baxday xafiiskiisa waxa gabi ahaanba xilalkii looga qaaday agaasimayaasha guud ee maamulka gobolka Banaadir. waxaana la filayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho in dhawaan uu soo magacaabo qaar ka mid ah gudoomiyaasha cusub ee degmooyinka gobolka Banaadir. iyadoo arintaasi ay jirto ayaa musharax Nuur Ismaaciil Sheekh oo taagan qabashada xilka gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxa uu maanta booqday qaar ka mid ah dadka danta yar ee ku nool gudaha degmadaasi. musharax Nuur Ismaaciil Sheekh ayaa kala sheekaystay dadkaasi xaaladooda iyadoo ugu dambeyntii oo uu u qaybiyay deeq lacageed ee uu ugu talagalay dadkaasi. haddaba qaar ka mid ah dadkii lacagahaasi la guddoonsiiyey ayaa ugu mahad celiyay musharax Nuur Ismaaciil Sheekh ee u taagan qabashada gudoomiyaha degmada Boondheere in Ilaahay uu u sahlo xilkaasi. waxaana sidoo kale musharax Nuur Ismaaciil Sheekh Ilaahay ay kaga baryeen in uu la qaado haddii uu helo xilka in uu noqdo midkii ay u aayeen dhammaan shacabka ku nool gudaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. ilaahayna waxaan ugu rajeynaa niyaduu leeyahay iyo wuxuu maanta ilaahay ka baryaayo si saalax inuu ilaahay ugu saqiro. waayahay marka musharaxa lacagta dhiibay Nuur Ismaaciil ayaa la yiraahdaa Sheekh. marka musharaxaas maxaad leedahay? musharaxaas waxaan leeyahay Nuur Ismaaciil Sheekh waxaan leeyahay musharaxa oo niyadiisi gashto inuu ilaahay degmada Boondheere inuu ilaahay u saqiro. musharaxa waa oo doonayna insha Allah ilaahay muraadis Allah u saqiro. Maxamed barakadiisa kii la jecel yahay Allah ka dhigo Boondheere Allah iyo guuleys Allah ka dhigo. maanta waxaan soo booqday maanta degmada Boondheere oo degmadeedii ah. marka waxaan ku faraxsanahay in aan maanta waqti la qaato. wax badan soo ma gaarsiin laakiin waxaan jecelahay in insha Allah wax badan soo gaarsiin. ummadda kale Soomaaliyeed waxa uu baaqayaa in ay ka warqabaan shacabkooda ay ka warqabaan oo shacabka Soomaaliyeed marba ka warqabaan dadka ay batisho ma matali karto degmada ma matali karto. marka waxaan jecelahay dadka degmadan inay ka warqabaan dadka jooga ku nool. marka waxa uu baaqayaa qof walba Soomaaliyeed inay marka ay sheeg ay caawiso ay caawiyaan ma sha Allah hase yeeshee arrintan ayaa waxaa imaanaysaa iyadoo dhawaan la filayo gudoomiyaha gobolka Banaadir in uu magacaabo qaar ka mid ah gudoomiyaasha cusub ee degmooyinka gobolka Banaadir. Ilyas Daud, SBS TV, Muqdisho.